Wakiilka haweenka ismaamulka Mandera Honu Mulqeer ayaa dhalinyarada siisay fursad ay ku sheegan karaan waxyaabaha ay doonayaan in laga caawiyo. Dhalinyarada ayaa sidoo kale soo bandhigteen cabashooyin kala duwan oo isla markaasina ay doonayaan in laga caawiyo agabka ay ku shaqaysan lahaayeen. Madam Mheshimiwa Mulqeer dhalinyartan ka bilaaba dhalinyarta Mandera zaid ay u dadaalaan zaid ay dadaal u qabaan laakiin caqabado badan dadaalkooda ka hortaagan. Caqabada ugu horeysa waxa waaye waxaan ka imaanaa bulsho sabool markay ka imaado oo dhalinyartana muhiimad weyn la siinaynin talentigooda iyo fursadihii ay soo saari lahaayeen ma soo saaran karaan. qofkii marka wuxuu develop gareynaa negative mindset. maanta qariib 100 u dhow qaar waxaa lagu haystaa Libya, qaar waxay ku jiraan wadada derbigan ka boodayna leeyihiin Yurub ay u socdaan, Mareykan ay u socdaan. dhibaatadaas kulli waxa uu keenay shaqo la'aan. qaarkood meel ay ku maqan yihiin hata lama aqaan. in fact waxay dhib ku yihiin security-gaayna waxa dhib ku aniga daan wareera maanta oo anigana aan wax soo saaran karo aan awoodii wax ku soo saaran lahay lacagtii aan business ku bilaaban lahay fursadiina aan arkahay haddii lacagtii aan heli karin oo supportna aan meel ka haysanin dawladda hata NGO hata qaraabo hata supportna aan ka haysanin stresskaas wuxuu keenaa qofkan fikirkiisa badan inuu meel dardaran ka dhac. nin farsamo yaqaan baan ahay oo muruqmaal oo ka beeta shaqeeyo oo county ka hor wax kasta sameyn jiray ha noqoto wixii fadhiga iyo wixii guriyaasha la dhigay oo ilaa hadda aan ku howlan wixii dadka ay daadiyaan sida wax ugu sameyn lahaa taahir noqota qajaclaydan biyaha laga cabo noqota ma maqlaysaa. mideedii labaad oo Cabdiraxmaan mideedii kaleeto oo dhibka meesha ka jirta oo Mandera horumar la'aanta u diiday waa lacagta lagu bixinay group lacagtan groupku lagu bixinayo waxay dhibka u wado hal qof baa familigiisa soo qoranaya chairmanka naagtiisu ka dhigaya ama secretary magacdada uu isticmaalaya lacagtii siga ku yaacay. waxaan ka shaqeeyaa arrimaha dhalinyarada ayaan ka shaqeeyaa sida uu sheegay Cabdi Meja group waxaan leenahay CPO la dhaho Mandera Got Talent. wax badan ayaan sameynaa bricks ayaan sameynaa waxaan sameynaa wacyigelin ayaan bulshada u sameynaa through the media aan sameynaa. marka Mulqeer waxaan ka codsanayaa waxaasaan sameeyaa laakiin wixii aad sameynaysa verbally way. Mulqeer waxaan ka codsanayaa xafiisyadeena inay imaato. xafiis waxaa la dhahaa Hagbad, xafiisna waxaa la dhahaa Mandera Got Talent. labada xafiis meel ay ku yaalaan laakiin shaqooyinka aan qabano inay aragto oo waqti ayna siiso. ma dhahay aniga waxaasna si waxa noo qabo ma dhahay wixii aan qabana arag wixii naga dhiman adigaba qof weyn tahay hore uga sii dhaqaaji meeshaas. wiilal ahaan hadaan u xisaabna Cabdi Meja youth wasichana pia wanaingia si ndio? hata kwa hii group yenu nimeona kuna wasichana wanafanya. horta group walba soo codsateen xafiiskooda fiire berri insha Allah afternoon ku dadaala inaan soo maro. wabangeynina subax hore function ama igal isku qaba afternoon insha Allah wabangeynina ina idin imaad. number 2 waxaan u rabay inaan idin dhageysto. waxaan rabay waxaad qaban kartiin inaan dhageysto. December unfortunately or fortunately waxaan la fariistay dhalinyar oo Mandera Football FKF iyo Mandera Football Association yalla ayuu laba kala group ayaa waxaan ku dhahay bal title-yada xaga naga dhiga maxay idin qaban karaa. wala hadla anay amaaneen the first women rep no la fariisatay oo balance marka December ahayd. January jawaab isiya waa idin ku soo noqonaa waxa idin qab ilaa hadda ay ugu soo noqonayaan up to now ma soconaysa moogta taas ayada anigana ina idinka idin tali buugayga kuma jirin markaan campaign garana waxaad waa idin ku soo noqonaa waa idin dhageysana waxa idin qabana idinka ii sheegaysiin. tii haddaan joognaa walaalayaalow mashiin waldi inta dhabarka iga soo saartiin ha shaqaysan waynina kaawaj kadaalika runta la isu sheegaa moogta
يا بدنا وحان رادينينا soft life شحاد sidan ma soconays caaqibana nooma aha shalay waxaan teachers training college iyo midan kale oo MTTI ay leeyihiin technicalka waxaan bazari u siiyay waxay ahayd in idinka aad ka kaaftoontiin shaqa nila qoray gacantiina aad ku shaqaysatiin Cabdiqani Cabdikariim Cabdiqani AK MCTV